ملاينا يا سومالي وكذا ركسنت إن عصبة يماذا مرة بير هذا وحين هرا وسعان وأنا حتى كحينا يوم ماركتي ماشي لو كلا جيناي وحصيرها وحبة كمدة ونكون هرا ماشي ما ندري كتير جري واحد كسر كني كرا حالات عكرين السومالي ما أنت كنت سنة مجر ترونتي waxaan isku bedelahay waa dadka la bedelay road map waa sidii waana kii socon waayay marka ma filay wuxuu ku soo kordhinay inay jirto waa ugu nasiib xun yahay qabaa maadaama uu ku soo aaday iyadoo dhammaan goboladii maaragtay shabaabka ay ka baxeen maaragtay ciidamada shisheeye oo ay qabsadeen maadaama uu ku soo aaday iyadoo meel walba ay hulcayso meel walba haddeer maaragtay qabiilada degan aqoonyahan la isugu dhiibay waxaan u malaynayaa dhibaatooyin kuwii hore ay ka nabad galeen oo asagu la kowsadayba marka waa nasiib xun yahay dhig kara runtii in loo tacsiyay in lagu amaano ma inta loo dhiibay calaasar ma ayna xeebtar bay aydan qabaa waagaag in xagalay in waxa uu sheegay in xukuumad ballaaran uu soo dhisayo tii hore saacidna wax badan ka duwan wasiirada in haddii uu kordhiyo ma isleedahay saacid wuxuu qabto wax ka duwan ayuu keeni karaa mise baarlamaanka oo kaliya ayuu ku qancinayay ma filayo waxa laga yaabaa in xoolaha niyadiisu ku jirto maaragtay si aad maaragtay u hesho kalsoonida qadaa'ilka Soomaalida macnaha ayagu mar walba ay uga dhigto maaragtay wasiirkeeni inuu macnaha kuwaas ku qancinayo oo maaragtay wasiirada fara badan intuu sameeyo aan mushaarna loo haynin kulay maaragtay inuu isleeyahay ku soo jiido maaragtay qabaa'ilada waa macquul inuu dhinaca ku fikirayo laakiin ma badnidooda iyo yaraantooda waxba soo kordhin mayso runtii kuwii horaa lahaa waa tayo badan yihiin oo 10 baa laga dhigayaa marka haddii 10 ku tayo badnayd haddana 30 tayo badan haddii la leeyahay waa meeris cusub haddii marka 10 fiicneed waxaa hadda 10kii ay u yaraatay waxaan qiyaasi karna ma aha runtii meeshan waxa yaalla waxay tahay saddex qof oo madaxa iyo 2 kursi haddii Nicolas Kenya wadanka uu madax ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne asagoo ra'iisul wasaare sheeganayo kulay asaga xasan halka sidoo kooda fadhiyaan qaba anigu marka kulay Israa'iil meeshiisu ka sii socon doona waa ayaan daro in maaragtay wasiirada kordhiyay wasiirada dhimay maalin walba lagu jiro ayadoo la og yahay waxa qaldan ma aha wasiirada tiri badnaantooda iyo waxa ay qabanayaan waxay tahay meesha hawsha laga bilaabay iyo road map-kan la yiraahdo in la raaco way kaas way waxa qaldan ma shakhsigan la bedelayo shakhsigan la keenayo waa tahay darkan maalin walba la bedelayo waa ta Cabdullaahi in wax badan waa la socota dhanka siyaasadda Israa'iilka Soomaaliya ka jira iyo xubnaha imaanaya iyo kuwa baxaya ra'iisul wasaare kasta cusub waxa uu yiraahdaa Soomaali cusub ayaa wax badan u qabanaya Soomaali cusub ayaa imaanaysa erayadaas ayuu ku hadlaa maantana waa ugu dambeysay kan hadda in kalsoonida helay waa uu sheegay maxay ula jeedaan waa magacooda waxa la yiraahdaa dam jadiid Soomaa badiiq cusub la isku shaqeeyaa wixii cadow ahaan jiray waa walaalayeen wixii saaxiib ahaan jiray waa laga booday oo maaragtay madaxweynaha ku qudbaynaya maaragtay yaa la isku jeclaan diin islaam ee maaragtay qadiyada iyo la isku jeclaado maaragtay xisbiyada iyo maaragtay dimuqraadiyada iyo wada shaqaynta laakiin inaan xisbi islaam iyo diiniyan aan la isku jeclaanin madaxweynaha ku qudbaynayaba marka ra'iisul wasaaraha waxaan maleynaa madaxweynaha waxa la yiraahdaa maaragtay geela duqdiisu durduriso waxaan u maleynayaa arinkiisuna hadii waa daba galaa marka waa xasidudaan oo dib male Soomaalidu way ka dheertantahay waxaan meesha ka jira maanta waxaan wax dad lagu xisaabi kara maaha wax soconayana maaha Soomaaliya way ka dhamaatay wax loo meeriyo maanta waxaan diyaar u nahay haddaan Soomaalina inaan danaayna ka tashano meel walba dhalinyarada Soomaaliyeed maanta sidoo hore maaha waa soo jeedaan markaan waa soo jeednaa ayaa waxba yaan miidiyada la isku martiinayna wasiiraan badinayna iyo wasiiraan yaraynayna ugu dambeyntii in Cabdullaahi Cali Xagaley cadaaladda iyo garsoorka ayuu sheegay in loo simnaan doono xilli haweenka la kufsado tacadiyada loo geysto xitaa dawladii ay qarinayso wariyaasha ka hadla la xirayo garsoorkaasi cadaaladdaasi uu ka hadlay maxaad ku sheegi kartaa taas waxaan ka hadli doonaa marka ugu horeysa markii uu ka soo warramo meesha ay ku tidaysay guddigii loo saaray maaragtay Maryan Qaasim ee gabadha la kufsaday ee 4 caruur taale ayadoo uur leh Ugandhaysku ay maaragtay ay ka aragtay isaga degeen ayadoo maaragtay wali Muqdisho dhex taala ayay wasiirada maaragtay Maryan Qaasim la yiri maaragtay guddiga ayada maamulaysa oo waa la soo baaraya kiiskii
guddigaas meeshii ay wax ku dambaysiiyeen kiiska wixii ka soo baxay waxa ay ku dambaysay dambiilayaashii meesha lagu maxkamadeeyey intaasaan xisaabtooda uga fadhinaa markaas kadib aan ogaan karnaa maaragtay inuu cadaaladda ka shaqaynayo iyo wixii ka dhiinay laakiin waxaan leenahay timirta hore dib loo waa aad ayuu umahadsan yahay cabdullaahi cali xagaley oo si toos ah qadka ugu jiray islamarkaana ka waramaya aragtidiisa ku aadan ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed maxamed ee codka kalsoonida maanta ka helay baarlamaanka federaalka waxyaabihii uu ka hadlay inuu wax badan ka qaban doono ayuu ila falaqaynayay aad buu u mahadsan yahay cabdullaahi cali xagaley